musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCD ayaa maanta si mug iyo meeqaamkeedu sareeyay lagu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Berbera kadib markii uu ka soo laabtay safaro uu ku marayay wadamada Sweden iyo Finland. waxaana musharaxa ku soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha magaalada Berbera afhayeenka madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka Ibrahim Xuseen Dhagaweyne, gudoomiyaha xisbiga UCD ee gobolka Saaxil Rooda Axmed Yaasiin, afhayeenka xisbiga UCD ee gobolka Saaxil Bootaan Axmed Guuleed iyo dhammaan taageerayaasha xisbiga UCD ee gobolka Saaxil. waxaana musharaxa iyo waftigiisa lagu soo wareejiyay jidadka waaweyn ee halbowlaha u ah magaalada Berbera, iyadoo markii dambana ay isugu soo shubteen xarunta dhexe ee xisbiga UCD ee magaalada Berbera. waxaana taageerayaashii soo buux dhaafiyay xarunta dhexe ee xisbiga UCD halkaasi ku la hadlay musharaxa jagada madaxtinimada xisbiga UCD Jamaal Cali Xuseen, isagoo ka warbixiyay safarkiisii uu ku maqnaa dalka dibadiisa. kulano aad u wanaagsan oo miradhal leh ayaan la yeelanay dowladda Sweden iyo wasaaradda arrimaha dibadda, baarlamaanka, qolada deeqda bixisa iyo jaaliyadda reer Somaliland iyo taageerayaasha xisbiga UCD ee wadamadaas. runtii waxay ahayd safar aad iyo aad u wanaagsan. waxaan aad ugu mahadinayaa dadkii reer Somaliland ee har iyo habeen ka shaqeynayay in soo dhaweeyay sida milgaha naga yeelay. waxaan kale aad ugu mahadinayaa dowladihii iyaguna soo dhaweeyay halkaas iyaguna hore u joogay sida sharafta loo soo dhaweeyay na dhageystay. waxay ahayd safar aan qadiyada Somaliland runtii ku iibinayno, xisbigeega ku iibinayno, fikradayda ku iibinayno. dhanka kale musharaxa jagada madaxtinimada ee xisbiga UCD mar uu ka hadlayay wada hadallada u dhaxeeya Somaliland iyo Soomaaliya oo lagu tala jiray inay dib u bilaabmaan, ayaa sheegay in xisbigiisu ay taageersan yihiin wada hadalladaasi. waxaana musharaxu isagoo arrimahaasi ka hadlaya hadalladiisii ka mid ahaa sida tan: haddaan in yar ka idhaahdo wada hadallada Soomaaliya iyo Somaliland oo bariyahan dambe dib loo bilaabay, sidaan hore u sheegnay xisbigeega uu taageersan yahay in wada hadalladaasi ay noqdaan qaar miradhala oo sii waara oo socda. laakiin waxaan jecel lahay inay noqdaan wada hadallo tayo leh. waxaad moodaa in mar walba inta la isu tago heshiis la gaaro, heshiiskaana ay Soomaaliya ka baxdo, Somalilandna aanay mowqif adag ka istaagin. waxaa iyaguna halkaasi hadallo kooban ka soo jeediyay afhayeenka madasha wadatashiga iyo toosinta qaranka Ibrahim Xuseen Dhagaweyne, gudoomiyaha xisbiga UCD ee gobolka Saaxil Rooda Axmed Yaasiin, afhayeenka xisbiga UCD ee gobolka Saaxil Bootaan Guuleed Axmed, oo dhammaantood soo dhaweeyay musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee UCD. Jamaal Cali Xuseen waa musharaxii ururka si fiican magaalada Berbera lagu soo dhaweeyay. waxaan leeyahay dadkii soo dhaweeyay waa mahadsantihiin. waxaan leeyahay Jamaal la soo dhaweey wanaagsan waa dadkaaga iyo gurigaaga oo lagu soo dhaweeyay. waa mahadsantihiin. waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa musharaxa madaxweynaha mustaqbalka Jamaal Cali Xuseen, anigoo ah gudoomiyaha xisbiga UCD ee gobolka Saaxil. waxaan leenahay musharax madaxweyne, waxa aan leenahay dadka diidiirada kaliya ay maanta haystaan waxa weeyaan muddada kaaga hadhay intaad meesha imanayso. waxaan ku leenahay soo dhawow. welcome ku soo dhawow gobolka Saaxil oo dhalatay. waan kugu soo dhaweynaa taageerayaasha ugu faraxsan soo dhaweyntaada. assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Khalid Xasan Nuur, Khalid Nadara, telefishinka caalamiga ee Royal TV, Berbera.